فاجزهم الجنة يا باري، 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 فاجزهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقالي أهوان السلامي magacayga waa raxma halka aad naga daawanaysaan waa Malaag channel. Sidaa wada ogtihiin maalmahan waxaa noo socday tartankaasoo lagu tartamayo cuntooyinka dalka. waa idinka yara mashquulay, sorry, hada uga xumahay howlo fara badan oo iyaalay awgeed, waxyaabo shakhsi ah iyo ihtimaamaadkayga ugu badan oo aanan ahin mar walba YouTube-ka, yani inaan juhdiga ugu badan aan geliyo. laakiin waa muhiim inaan helo waqti aan la qaato walaalahayga qaaliga ah si aan uga faa'iideeyo waxyaabaha isleeyahay waa uga faa'iideyn kartaa. sidoo kale idinkana idinkaga faa'iideysto min xaytu tacliiqaat, yani afkaartiina inaa hoos noogu soo qortaan. waa mahadsantihiin. adeegkan sida arkaysaan wuxuu ku kooban yahay waxyaabahan waa koosto maaska haafkeeda waaye. sidoo kale waxaa waaye filfil iyo cusbo. sida arkaysaan filfisha faa'iido badan ee leedahay jirka. halkan waxaa ku jiro toon, 2 xabo toon waaye iyo kabsar caleen, 2 xabo basal oo aad u waaweyn waaye. mar walba basashaada badan tahay waa mar walba oo cuntadaada macaan tahay. insha Allah waxaan rajeynayaa yani inaad fahanteen oo cuntadaada kadib basal fiican ku darsan doontaan. aniga taa Soomaalina dalac le isticmaalna, laakiin basasha masha Allah cuntadaada macaanaysa. halkan waxaa ku jiro yaanyada waa badsaneynaa maadaama shiishiid iyo waxyaabo kale aanan isticmaalaynin. sidoo kale halkan waxaa ku haysanaa 5 xabo ukun ah. ukunta sida arkaysaan way yaryar tahay, ukun la bacrimiye ma ahan, waa ukun dabiici ah. waxaa dhashay doorada caadiga ah oo Soomaalida ay dhaqdaan. yaraanteeda ka arkaysaa maahano. mar walba waxaa idinkaga digayaa inaa isticmaashaan sheeyaasha la bacrimiyo sida qudaarta bacrimiska ah, karootada dibadda laga keeno kale, iyo doorada la bacrimiyo ukunteeda iyo waxyaabahaas oo inaa isticmaashaan idinkaga digaya. caafimaadku ma wanaagsano. maasha Allah ukuntan faa'iido badan ay leedahay, haba yaraatee laakiin faa'iidadeeda halkan laguma soo koobi karo. ayaa soo hagaajinaynaa tunta iyo kabsarta. sidoo kale kabsarta soo rifeynaa, tuntana qolka soo fiiqi doonaa, koostadan waa soo shiidi doonaa insha Allah. daawasho wanaagsan. waa soo hagaajinay halkaan ugu diyaarsanay. sida arkaysaan waxaa ku jiro filfil iyo cusbo ku jiro, 2 xabo basal ah oo aad waaweyn, toon iyo kabsar. sidoo kale waxaa waay silmacsar. dhaladan waa aragteen anuu 2 mar isticmaalayo, marna anuu idin dhahay waxaa ku jiro saliid saytuun. dhalooyin yaryar waaye, 2 xabo iskula socdaan, midnima lagu kadaa. waxaa loogu talagalay in lagu soo dhaweysto saliida iyo waxyaabahaas. sidoo kale makiinada ama khalaadada waxaa ku jiro koostada qaybteeda cadaanka oo salka ah aan soo jarjarnay, waa soo shiidnay, si fiican oo soo shiidnay. halkaasaa ku soo shubnay. cagaaray isku bedesho ma aragtid, qaybta cadeed waaye. mar walba yani shaqada inaa iska kala fududeysidaa fiican. sidoo kale halkan waxaa ku jiro koosto waaye, qaybtii oo caleenta ahayd ku jirto, ma jarjarin, waa soo rifalay. sidoo kale waxaa ku jiro yaanyada aan soo shiiday. digsiga dabka saaranayna, waxaa ku shubeynaa saliid macsarada ku shubeynaa. waxaan ku dareynaa 2 xabo basasha ahayd aan hore idinkugu sheegay, aan dhahay waa soo jarjaray. waa calaanjineynaa ama waa walaaqeynaa. videoga hore waa calaanjineynaa waa lagu qabsado maahano. waxaa la calaanjiska mala fahmi karo, dadka dhan walaaqitaan ay fahmi karaan. waa mahadsantihiin. mar walba oo fikir qurux badan ay soo bandhigtaan sidaan oo kale uga faa'iideysanaya. tacliiqaadkiinana waa akhriyaa, wallahi waana aad ugu raaxaystaa marka akhrinayo. calaanjineena inta yani kalarkeedu uu iska bedelayo. hadda kalarku wuu isbedelay, xoogaa fiyool mise qaxwi mise bunni, hadba sida u taqaani uu noqday. haddana waxaa ku dareynaa yaanyadii waaye, waa ku calaanjineena. asxaabe waa mahadsantihiin sida quruxda badan ay ila soctaan mar walbo. yaa
koomati qurux badan markaa ii soo qortiin, qaarkood nambarkayga soo raadiyaan ila soo hadlaan, wax badana ka faa'iidnay dhahan, aad ugu farxaa. Hadda waxaa ku darnay koostadii waaye, qaybta jilcaneed oo caleenta aheedaa ku darnay. ma fahamteen, wallaahi aada idinkugu farxaa. saas wadi haaya. waxaa idiin rajeynayaa insha allah inaa wax badan kala faa'iideysano oo wanaag, jacayl iyo alla kacabsi aa iskula joogi doono insha allah. idinkana aa ilaahay idinkaga cabsado oo caqligiina aa ku ciyaarin, wax yani caqligiina anfacayo oo waqtigiinana u qalmo inaad fiirsataan. ani aa waqtigii gelisaan idiin soo gudbin doona insha allah. haddana waxaan ku daray qaybta cadaanka aheyd aan soo shiidna waaye, warkaa ugu daray. meeshaana ku dhaaweysi 100 la keenay, ma fahamteen. qaybta cadcadka hadhow markii la jabinayo laga wehsanayaa yaa. haddana biyo ku darena. gabadhi aniga lamid ah kommentaar soo qortay waa daboolnay insha allah. yara bislaanaya, ma fahamteen. hadda way soo yara bislaatay. waxaan ku dareynaa filfisha iyo cusbadii aa ku dareynaa, waa ku shubnay. cunto kasta aa karinayo filfil malaga weeyo, cunto kasta aa karinayo yani filfil malaga waayo, ma fahamteen. filfisha waxaa waaye maasha allah aad u jeclahay. waa calaantineynaa, waa walaaqeynaa. sorry haddana waxaan ku dareynaa 2 xabo tunta aheedaa ku dareynaa. walaaqitaan, ma fahamtay. walaaqitaan waa igu yara adag tahay, iska dulqaata. calaanjiskaas le mar walba afka soo qabanaya, fahamteen. aada idinkugu faraxsanahay inaan wax idiin soo gudbiyo oo waqtigaygana qayb idinka siiyo, muhiima ay tahay. waadna mudan tihiin waqtigoo dhan in la idin geliyo, laakiin jaaniska iyo duruufaha nolosha oo nagu hareeraysanaa mar walba noo suurtagelinaynin. haddana waxaa ku darnay kabsaraa ku darnay, kistiyaaradoo meesha ku jirtaa soo tunna waaye. waa calaanjineynaa, waa walaaqeynaa insha allah. sidaas quruxda badan ee kusoo baxday koostadeena. waa arkaysaa guduud ma ahan, mahano sababtoo ah shishiid iyo waxaas ma isticmaalin, liannu ani ma jecli shishiidka, fahamtee. dookhayga waa ku socdaa markaa wax sameynayo. dadka cunaya aniga waxba shaqo ma ku leeyay. daboolkiisaa dhab ku siinay. haddana laastiya marowsaa waa ay bislaatay maasha allah. waxaan ku dareynaa ukuntii 5 xaba idiin sheegay asoo biyaa ku kariyey. qolofkana waa ka soo fiiqay, waa ku dhex rideynaa. koostada faa'iido badan ay leedahay, caloosha u fiican tahay, way socodsiinay. hadday caloosha ay ku adag tahay oo kale, dadkii isku mid ma ahan, qofba waxaa u socodsiinaya caloosha. waxyaabaha oo caloosha socodsiinaya ay ka mid tahay. daboolkaas saareena. wassalaam.